filimkan sheekadiisu waxa weeye ninkan asagoo raba in la raali geliyo ayuu wuxuu arkaa dad lagu maadayo xoog lagu haysto hoona tuulada oo dhan ay ka cabsanayaan ninka lagu magacaabo Ranatunga iyo qoyskiisa markaas ayuu bilaabay inuu dadka badbaadiyo kadib isaga iyo Ranatunga ayaa cadow isku noqonaya sheekada filimka waxa weeye sidoo dadka isu badbaadin lahaa asigoo kaligiis oo la dagaalama ciidamadan oo isku duuban oona tuulada xukuma fadlan hadda ku cusubtaa channelka subscribe like noo saar filimkan waa action waana dagaal xiiso iyo ujeedo leh filimka daafaan idinka siiyo oo muhiimada idin sharaxo filimka wuxuu ka hadlayaa nin ka soo jeeda Sri Lanka oo Hindiya si sharci darre ku soo galay inuu Sri Lanka ka soo tagay waxa ka dambeeyay 2009 kadib dhamaadkii dagaalkii u dhaxeeyay Tamil iyo dawladda Sri Lanka ciidamada Sri Lanka ayaa baaqay hub iyo dahab lagu qariyay keenta Ranatunga iyo asxaabtiisa ayaa loo shaqaaleysiinayay inay meesha qodaan waxay sim lama filaan u helayaan hanti qarsoon oo la caqeexeen xeebta Hindiya iyagoo dilay ciidamadii markii ay Hindiya tageen waxay la heshiiyeen askari musuqmaasuq ah oo aqoonsi cusub laakiin si degdeg ah ayuu Ranatunga u noqday dhibaato weyn isaga iyo raggii la socday waxay bilaabeen inay dadka dilaan si aan kala sooc lahayn waxayna cabsi ku fidiyeen tuulada sharci qabanaya ma laha ninkan tamil 6 sano kadib markii meedid madax la'aan ah ayaa laga helay tuulada beeq ku dhex taalay taliye dumar ah booliis ayaa u tagaysa si ay u qabato Ranatunga laakiin waxay ku dhacaysay gacanta Ranatunga xaaskiisa waxay ku fasaxaysaa raggii waxaana loola dhaqmaa si xun dharka booliiska ayaa laga siibaa halka kale dhanka tuulada ayaa waraaqad u diraya madaxda ayagoo waraaqada cawishadooda ku qorayo waraaqada waxaa la socda furooda soo jirin waxaa meesha loo diraa madaxa sirdoonka si oo meesha u baaro marka janaalka inuu subscribe ku wayna aad aragtaa hadda subscribe noo saarto waxaan arkaynaa dhanka kale sheekadaas waxaa garab socda sheeko kale oo ah aktarka filimka oo lagu magacaabo Jad asagoo tareenku safraya ayaa tareenka dhex ku istaagaya kadib wuxuu aadaa meel uu wax ka soo cuno asagoo cuntada iska cunaya ayaa waxa imaanaya ciidamo waxayna ka daadinayaan cuntadiisa halkuu iska aamusla sidii dadka kale wuxuu ninkaasi si kulul u dalbanaya raaligelin arrinkaas ayaa keentay dagaal wuxuuna dilaa ciidamadii oo dhulka ayuu la sima ninkii ciidanku u sareeyay ayuu dhahay raaligeli ninkiina wuxuu dhahaa ninkayga sareey hadduu ku arko uu ku dilo aniga ninkaas ayaa u shaqeeya haweenay soo raacayaan dhanka kale sargaalka dambi baara ayaa magaalada soo gaaray waxaa loo sheegaya wasiirka lagu magacaabo baaqad inuu shaqooyinka hayo uuna ka xumaanaya arrinkaas wasiirka isla markiiba Ranatunga iyo familkiisa ayuu wargelinaya si ay uga fajignaadaan dambi baara Jad wuxuu maana ninkii loo soo sheegay waana la garaacaya asaga iyo ciidamadiisa asagana sidoo kale ayuu dhahay wuxuu soo tilmaamaya Sumbule oo ah Ranatunga walaalkiisa waxaana loo imaanaya asagoo dad dawladda u shaqeeyay inuu meel ku soo xaqiistay waraaqado timbareynayo waana la garaacaya asaga iyo ciidamadiisa asagana wuxuu tilmaamaya walaalkiisa Kevin dhanka kale baarad wuxuu la kulmay sargaalkii sirdoonka ahaa wuxuuna dhahay wax kasta ayuu ku siinaya ee magaalada iskaaga tag qofkii ku soo diray sheegay inay magaalada ee nabad sargaalkii laaluushka ayuu ka xanaaqaya wuxuuna ku dhahay daacadeen kuga helo magaalada ayaa kugu soo wareejin doona adigoo bahdil dhanka kale Jad wuxuu imaana xaafadii Ranatunga asagoo wada walaalkiisa ciidamadii ayuu la dagaalaa cid iska celi karta ma laho ilaa ugu dambeyn uu imaado ninkii ugu sareeyay oo ah Ranatunga wuxuuna dhahay raaligeli wuxuuna u sheegay sababta loo raaligelinayo kadibna uu raaligelinayo asagoo iska bixi qabo ayuu meesha iskaan saaray wuxuuna soo xasuusanaa intuu dagaalka ku jiray wuxuu arkay kadib ayuu dharka booliiska dumarka ayuu arkaa wuxuuna arkaa gabdho meesha ku xiran wuxuuna u dhiibaa dharkooda ciidamadii Ranatunga ayaa soo weeraraya wuxuuna la dagaalaa dhammaantood Ranatunga ayaa xanaaqay qori biskoolada ayuu isku qabanaya laakiin Ranatunga xaaskiisa ayaa dejinaysa waxayna dhahaysaa dadka iska fasax mar kale ayaa la xisaabtamayna sidaas ayay ku soo baxayaan Jad iyo gabdhii adigana maadaama weli channelka subscribe saaran hadda channelka subscribe saar isla markiiba ciidan badan ayaa soo weeraraya Jad iyo gabdhii wayna dagaalamayaan waraya midi lagu mudaya Jad wuxuu rabay inuu badbaadiyo gabadha laakiin meesha isbitaalku ma yaalo gabadhana waxay u baahnayd biyo meel ay biyo ka soo shubanayay weynayaan laakiin maama duqa ayaa biyo u keenayso nasiib xumo gabadhii way dhimanaysaa Ranatunga ayaa soo wacay Jad wuxuuna ku dhahayaa adiga gabdhaha wadatid cid iga ka badbaadin doonta ma jirto ninka Ranatunga magaalada oo dhan dadka jooga way ka cabsanayaan laakiin waxa arkayna hal mar ayaa gabar yar iyo wiilal ayaa waxay go'aansanayaan inay warqad u qoran gabadha madaxweynaha wuxuuna qorayaan dhibka lagu hayo suulashooda iska jiraan oo warqada ay raacsiinayaan laakiin markay soo laabtaan ayaa waxa dilaya Ranatunga iyo xaaskiisa wiilashii oo si xun ayay u dilayaan ciidiisa iyo dadkiisa soo watay ciidamo badan ayuu sameystay dhalinyaradii oo dhan daroogo ayuu baray tuulada oo dhan xoog ayuu ku qabsaday dhanka kale Jad wuxuu amaana xabsi wuxuuna u sheegay raggii uu soo leeyahay ciidamadii way yaabayaan kadibna wuxuu wacay gabdhihii waxaa ku qosqoslaya taliya Jadna wuu ka xanaaqaya taliyii ayuu dharka ka siibaya ciidankiina way qabanayaan Jad kadibna waxaa imaanaya Ranatunga walaalkiisa
laakiin hal mar ayuu jaad soo kacaya wuuna la dagaalaya ciidankii gabdhihii dhankooda ayay ka dagaalamayaan wuuna leynaa ciidankii oo saldhig ayuu kasoo laalaadinaa Akhenatonga markuu arko walaalkiisa oo dhintay aad ayuu ugu xumaanaa dhanka kale sargaalkii waxaa loo soo sheegaya xogta Akhenatonga anigana waxaa lii soo sheegaya inaa janalka weli subscribe aadeen hadda subscribe dheh Akhenatonga oo kamid ahaa jiray ciidamada oo laga saaray markii la arkay dhaqankiisa iyo inuu dadka iska dilayo wuxuuna sameystay ciidan asaga ka amar qaata wuxuu qaba ayuu sameynaa wax kastana waxa uu sameynaa lacag darteed asaga waxaana arkayna Akhenatonga iyo ciidankiisa dadkii ay hal meel iskugu keenayaan gabadhii yareed ayuu ku dhaha waqaqad u qor gabadha madaxweynaha dadkii ayuu baas ku fuqa oo leena dhanka kale dambi baaqa waxaa loo soo sheegay xogta jaad waxaana la asaga ayaa dadka badbaadinayo jaad helicopter ayuu ku imaanaa ciidankii ayuu hub kala duwan u adeegsanaa uuna baabi'inaa ciidankii Akhenatonga kadibna waxaa meesha iskugu soo haraya labadooda dagaal maantumaan ayaa dhex maraya oo gacan ah ugu dambeyn Akhenatonga waa laga adkaanaya waana lasoo laalaadinaa gacanta dadka oo gumaadaya ayuu ugu dambeyn ku dhimanaa dadka ayagoo faraxsan ayay macsalaameynayaan jaad dhanka kale gabdhihii markay u tagaan Akhenatonga xaaskiisa ee qawmaagaan ayada ayaa isdilayso duqdii naxdin ayay u dhimanaysaa filimkeena intaas ayuu ku egyahay fadlan haddaa intaan la soo gaartay janalka subscribe iyo like noo saar